السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا سو دوادا مقعينا وسعيد خليف halka igala socotaana waa channelkayga Saciid Khaliif official oo hadda u bixiyay maadaama ay Saciid Khaliifyo badan jiraan sidaad la wada socoteen barnaamijkeena xariif magaalo ayaan idin wadaa qaybtii 11aad bay aniga ii tahay ama anaga noo tahay halka ayaga kooxda asaan ay u tahay qayb 19aad oo aan bal casharada ku jiray iyo waxaas aan macnayn doono marka hore laakiin waxaan rabaa intaan bilaabin anoo idin boosiinaya laba qof oo comment ka soo bixisay bal inaan u yeeraa commentigooda ka yara jawaabo haday macquul tahay qofka koobaad wuxuu yiri waa kana waxaa la dhahaa Xasan Jeylani saaxiib horta marka hore waa mahadsan tahay inaad maaragtay comment ka soo bixisay muuqaalka أنا دعوت وقت جلسي شبري كور waxaan u sameeynaa runniya moodaa see camal sax run ma moodo waa runta laakiin ay waxaan maadaama ay nolosha saameynayaan baan comment ka bixiyaa ma ahane inaysan waxaan run ahayn oo riwaayad tahay waa ogahay aad baa u maasantay inaad ku soo bixisay isla Xasan Jeylani miya waa isla asay qofkii laba qof aan kala qabay warniyo adiga ninkan maxaa ka rabtaa oo ku daba dhigay shaqadiisa adiga in lagu mashquulo ma rabtaa nin weyn waad u eg tahay mise adiga aba fuse ka raadinayo adeer waa ceeb iska dhaaf dhowr jeerna waan ku arkay waxaan film la jilay Apple waa ogahay inay film la jilay tahay adoo maadsan sababta aan anay falanqaynta uga bixinay waxay tahay in casharada riwaayada ku jira aan sii sharxo fuse-na kama raadinayo waxyaabo kalena waa idin soo gudbin doonaa insha Allah podcast si aan bilaabi doonaa waxyaabo tira badan baa soo gudbin doonaa marka nagu qaata fuse bisma ala waxarna casharada riwaayada ku jira oo aan faahfaahsanayn inaan dadka u faahfaahino qaybta tooraad way xariif magaalo bal aan isla daawano markaan haddii aan ilaahay si caadiga noo ahay waan idin boobsiin jiray si aan waqtigiina qaaliga idin kugu dhaqaaleeyo taati waan ka dhigayaa xaysiintana kole hadda waa dhaafiyaa u malaynayaa waxyaalaan sii dhaafi intaanay ku eg tahay isla daawano xariif magaalo aba iskaamka Soomaaliya bal maanta iskaam galeen rabaa riwaayada magaceeda waxaa la dhahaa laba xaasle waa rag raas kala qalin jiray baa maanta la geli rabaa xariif magaalo ila daawada aye aan gaabiyo xariif magaalo buugiisimiya buugiisma la qaada saaxiibkii la jida jireen waa kana muusiga waana ku qabsadaaniyo ninka kirada teleefkiisi waa hayaamiya warniyo adigana xiliga maal soo waca kari waxa soo weydiyaa qofkan asaab xanuunsanay warniyo kirada ma aqaan aw xaajigayga dumaashi qof kale la hadlaayay saaxibkayga asaab xanuunsan hadda isbitaalku yaala maxaa ku dhacay wax dhiba magaal bajaaj baa la gudoontay maya bajaaj ma ahan waa iska caadi ana calooshii waxba ka qasmay waa fahmi waa soo dhanba nooc kale oo markii isbitaalku yaala ninka kirada ku qorto wax bad shukaansado waay inta macaan assalaamu calaykum ya eedadaada ah maya walaashay isdaji adigu kula hadlayna qof kale kaalis isbitaalka joogan la hadlay isbitaalka xamar oo yaala odagaa isbitaalka xamar haysiina loo sameeyay dabcan markii wax la jiri soo كان شاتي nin normal sheegana tiktor anoo iqabaanin bukaanka horta xaaladiisa hadda waa okay meeshaan isbitaal waaye buuq iyo waxyaabahaas loo baahno bukaankan haddii qof uu soo booqanayo familkiisa kamid ah 3 qof ilaa 4 qof loo baahan yahay maantana waqtiga kadib waa la bixinaya marka waa maasantiin anaga ayaa aragnay nin dhan inaag soo noqday soo ku xisatay inaag wal jidka arkay naagaha zimka caadi maahan aye walaalka ma hore lagu furaadiga adaa naga hadla teed kale anina qaw ma ka helo ninka isbitaalka ma kala furno tideedii oo dhan ku maqan fufun walaalka kala qarin jiray aye dood iyo hadal wixii xaafadda aan ka dhigan hadda bukaankeen aan soo booqan nakayna I am the boss lady am the boss lady ali meesha ana boss ka min weyntii baa macnaha laga wadaa maxaa ka banaanka looga tagay waardiimo ah xariif magaalo akala laba kala qarin jiray baa isku tagay حاجة ساعتها في عنتها هاي ما يتقنها ويا la aqooni markee استجيب نجي بعدين قانا حاسس كياتي وأدين كان قرينا لكن هل أرني وين وذيك قرينا يا جفت حاجة محتاجها أنت هنتي دي يبقى أقول يا مدام ودن كان aye xariif magaalo ما أنت ليش شيء إذا إنك القيامية aye لكن مركز روح عربة إن إسعافسان ما بتسجلسان aye كذي ما هم تلا ذيك القيامية أنا كان إقرأ النقطان إسعافية waxaa laga hadlaya waxay tahay ragga
ayagoo magaalo jooga laba naagood qaba kala qariya aakhirka way is ogaanayaan waxba ha qarqarina xaaji haddaada bareeraha cadaysan karin marka horeba edabiyada okay marka arrintaasaa laga hadlayaa markii hadda ninkii uu sariir fuulay unbay is ogaadeen waana xaalad xun is ogaadeen qaylo iyo buuq iyo khayraa ka dhalinaysa sacafiyu yiri عارف يا هو كلا هوينا يا برولو عباس حاسسكي ويس ogaadeen ويس عارفين laabta iskiliya markhaatiyaa ka tahay dadweynaha markhaati ka yihiin markhaati ku yahay ايه هذا مرو يري هاوش دجينيا نيكان waa wala maxaa waay no rules just a survivor يا الله ما هذا يحاسك تشتري جيم يا جيم وريتك حاجة gabadhan hantida noo kala qaybay naga dhaxayso ما هو istana joogna guri inta gabadhan xaaji aniga isku guri ma deganin hantida hadda noo kala qaybay شقوا والله دي على المقال hal dhul oo isgoys ah oo magaaladan wadankan aan ku leeyahay waxaa ku wareejiyey xaaskayga koowaad bahweynta amiira ايه $30,000 Mareykanka واو ما هو يستاهل $50 diin waxaa ku leeyahay cambuur waxaa ku wareejiyey xaaskayga labaad ee bahyarta naciimo $50 diinta cambuur adaa ogaasanaya saaxiibo si caadi ahna $50 sidii eedooyinkii hore wax kala qaybi jireen ama la kala qaybi siyaabo ku heli kara hal mid aad ka codsanaa ايه antaasaan ku baxo ilaahay jeclaada yaa liiga dambeyn ايه marabi هي ballan waay xaaji balan waay xaaji بايرت ما حدا كما قنع سلام زمان انا قدام بين كلها ya adi maxaa qabanay ana xaajiga ilaashanaa تم صدحات يا ابو قرنيه waxaa kuma bixiya saaxiibay lacag soddon kun ku sii dhulkan ku bedelta soo meehe ii buuqis maxaa gelinaya lacagta qaadana waa in badan tahay taada kala ku weydiiyey naagta biyaha sabab kugu soo dirteen lacagta ninka ii ilaalinaysa saaxiibay وستارك وكسر عارف مقال wax isku malaysaa inaa isbadbaadiso laakiin 4 sano oo buuq ah adiga gacantaada ku saxiixa يا صباحي ما عندي halow xaaji caawa xaafadaydaa tahay reer kale berin dhulkayga ay soo tiisisaa u baahanahay هاي ديار واي ديار ايه قطعتو دونت يبلو بان كسيرا يا شيك maxaa way fikirka hadana 4 sano buuq ah ma 2 sano hadana oo buuq iyo fikir ah ku darsat الو haa xaaji aqoon cusub waa soo furtay وعندنا واقف فكرنا حاسس كي ناس قرب عم فهمت مركا إذا دولا كوسا لا بيرو نقول هذا لمين دولا كدي قربانو ايه إذا دولا سينا برين وادي صوت سالين ايه gabadha saaxiibadii la soo tashtay waxay idheen dhulka kuu fiican markay beri dhulka soo tastay xawar dhulkan asheegis xamar luuq hataa ma kulid maana cirka ma adiga dhulku leedahay wax wada بيرو كل قنعيه لا بتبادي كرو لا بتذكره انت بس كنت تعرف مقال واي لا يكون هذه عرف مقال والله انا كان سكاب ما أنت روكا واكن ايه بس جوز كان على أسكالك ايه هذا الشعب الصومالي استعماله ما أنا كيكا مارمان يا الله عرف مقال والله هذه hadda dhulkayga kan miya وضع عالي هو ودقن loogadiisii وياك سبر لوجا مجرين كاغا سيدا ورقد عدد السجري ايه يا لو دخل مالن ساسا لو واي لاك سبر لوجا ولا سمين كرا ايه لكن وضع عالي وحلية وضع سيدك ويه واقع نايريدا سيدك يقول سوق ريحة حتى يا الله حريف مقال عياث ما نيديست اسلا يدي سفي عن سقفيري هذا بروبليم يجرو maxaa balan دول كان هذا الشعب الصومالي استعماله ايه قفنا حريص بدن وقت هذا وضع والله دقي كنا حريصه markay ka maarmaan dhulka la wareeg goorma ay dhisay marka maxaa goorma dhisay ana guriga ku dhisaa dhulka ku dhisaa ma ku dhahay mise dhulka ku siina dhulka waa kana ana idab daram rabiya waa idab daran dhulka iska ilaaliso xilliga lacag heshiiso من وين تسمى الله هذه كرواي معناها kuu keenaysa filim ما دبعوا وقت تاسكو دكاده يعني waxay ku tusinaysaa day muhiimta soo la hadlay waa su'aalaha ugu jawaab miyada laakiin uu ku xanaaqay soo jeedin miyada waa iska afaadsan tahay laakiin waxay ku tusinaysaa ragga Soomaalida isay wax kala qariyaan isay gabdhaha ay qabaan ay bent u kala qarnaan sidoo been ha ku noolaan runta inta dadka ka saar my friend ha qofkii ku qanacay ha ku qanco qofkii ku qanci waay ha ku qanco
aysan ku qancin hadduu rabo weligaa runta haddaa ku dheganaatid waxban kaa halaabaya ma garateen marka channel kale subscribe dhaha Saciid Khaliif hadda waxaan maraynaa saa ujeedaan indhihiina ku aragteen waxaan maraynaa waa kasoo balanqaadka waa kasoo baxday 61 waxaan rabaa next video insha Allah anuu 80 kor u dhaafay inaan muuqaalka idiin soo geliyo aad u maasantihiin xarig magaalo abaaska Soomaaliya maanta qaybtiisii annaga noo ahayd markaasi noo ahayd qayb kooyto taasay noo eg tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي